بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقا waa cabdiraxmaan xasan cabdi waxaan ku dhashay magaalada muqdisho. aniga waxaan ahay qof xogaa dhaga cuslus yani dhaga culus laanteeda ma ahin boqolkiiba boqol balse waa haaf labada dhigood dhegta midig ayaa xogaa wax maqalkeeda shuuca ku furan yahay. hadalka dadka waa maqlaa sida waxyaabaha shanqarta caadiga loo maqlo kale balse ma fahmo sidii luqad qalaad in lagu wada hadlay oo kale wixii waa maqlay laakiin wixii ma fahmaysid wax maqalkayga saas waay. marka inta badan dadkan isnaqaano hadaladoodu waa fahmaa waa ismaqalnaa. arintan aniga kuma dhalanin yaraanteydii waxaan ahaa qof caafimaad qaba oo fiican balse 2000 wixii ka dambeeyay ayaan saan noqday. mixnadeeda waxay bilaabatay markii sanadkii 2000 iyo labadii la geeyay iskuulka la geeyay markii iskuulka la geeyay ani waxay soo wajahday mixnad. أول شيء وين دكواد وحيد إنا 10 كأما دروس تو معلن شرحها مقلوعة طلبات يقدر سنتنا وحيد أرجيج أو حقان نقطة مضعيفة ما دام كهر أنت أنا سكول كأنا بلابن في شيء سيانكم مشغول سنة حقان ده مركز قد ضعيفين 10 صبورات كقرن واركواي شرحات معلن كنا ومقلوعة من تاسن وحي كنتي إنا كل بتوضو سكول كينا سيوضو muddadii aan iskuulka dhiganayay fakta hore bilowga ahayd ardayda intooda badan isma noqonin marka ma jirin saaxiib gaar ah oo aniga aan lahaa wiil dhalinyaro iska daayar 13 jir meelaasan ahaa. sidaas awgeeda markaan isku dayo inaan arday kamid ah ardayda aniga ila fadhisaan 10 ka qorto si aan u fahmo yani arday walba wuxuu ku dadaali jiray inaan buugiisa waxba laga qoran midaasi waxay dhalisay aniga inaan ardayda iyo buugaagtooda dhan aan iska dhaafo kadibna gooni ayaan u fariisan jiray wixii maankeyga ku soo dhaco aan buug ku qori jiray maalin walba wax lee buug isugu qori jiray markii uu macalinka 10 kala bixinayo ana maskaxdeeda 10 kale oo gooni bixi jirtay. marka xaalkeyga sidaas ayuu ahaa muddo 2 bilood ilaa aan imtixaankii koowaad ee shahriga aan ku dhacay. imtixaankii markaan ku dhacay maadaama duruusta aanan maqlin sidoo kalena aanan arkin waxaan ku dadaalay markii hore ciladii soo wajahday yani in aan wax ka qabto wax maqal la'aanta iyo arag la'aanta. horta wax maqal la'aantu isku ogaa laakiin fasalka inaan waxba ka arko anigoo kursiga ugu horeeya fadhiyo la yaab ay igu noqotay. adii xaaladaas isbiirsada markay isku darsameen talaabada aniga igu dhiirigelisay inaan sii wato waxbarashada oo waqtigaas aan bilaabay waxay ahayd kadib markii aan hooyadii u tagay waxaan dhahay waxbarasho ma sii wadi karaa aniga. markii aan fasalka fariisto 10 macalinka ma maqlo sidoo kalena kuwa uu sabuurad ku qoro ma arko haddaan waxa maqlin waxna arkaynin yani maxaa 10 ka sii wadaan. markaas ayay hooyo wixii igu tiri maalin walba oo iskuulka tagto markay ugu yartahay hal xiri ah taayirlaha ka dhigay wax ma soo faa'iidaa. waxaan ugu jawaabay dabcan haa wax waan faa'iidaa. markaas ayay waxay igu tiri erayadaas aruuri iyaga cilmi noqonaya. aniga waa dhalinyarahay hadalkaas laakiin saameyn igu yeeshay. waxaan ku dadaalay in aan waxbarashada sii wato maalin walba waa ka lihi jiray iskuulka aadi jiray wixii aan soo fahmo waa soo qaaday jiray wixii kalena waa ka soo tagi jiray. adiga markii indhaha ay ii furmeen oo yani oo horumar aan ka gaaray dhanka waxbarashada waxay ahayd markii iskuulkeenu ku soo biiray macallin la dhigi jiray macallin xasan macallin cusub oo iskuulka lagu soo biiriyay ayuu ahaa maadada tarbiyada ayuu noo dhigayay. maalin ayuu wuxuu arkay aniga oo waxba qoranaynin xilli xiisada ay socotay oo 10 yeernay asigana yeeriskii uu macnaha uu yeernay dadka dhan waxay qorooyin laakiin aan wax ma qorayo. markaas wuxuu yiri asigana uu ku cusbay fasalka dadka aqoon ma kala leheen ninkan maxaan ku dhahay waxba ma qoraayeen. markaas waxay dhaheen ardaygii uu dhago culus yahay sidaas awgeed wax ma qorto. macallinkii uu aamusay fasalka igula muusan dhex hadlin maxaa wax qor laadahay muusan dhixin shibuu dhahay markii xiisada bareega la gaaray uu yeeray xafiiskayga waxay kadibna wuxuu siiyay buug maadada tarbiyada ah oo anaga markaas uu dhigay wuxuu yiri 10 ku soo dhaafeen dhanka soo qoro inta ka soo diyaarso wax walba hadda ku dhaafay halkan ka qoro. aniga markii aan buuga gacanta ku heray yani gacanta ku dhigay oo aan akhriyay
waxyaabo fara badan oo markaas iga maqnaa ayaan gacanta ku dhigay sidaas awgeed waxaan fikiray inaan bilaabo inaan fikiro yacni aan ka fikiro sidii aan maadooyin kalena aan iyagana gacanta ku dhigi lahaa luqadda aan wax ku barnayna waxay ahayd luqadda carabiga sidaas awgeed aan luqadda carabigana ka hor intaan iskuulka galin ayaan horey usoo bartay in badan ayaan ka fahamsanaa marka waxaan isiri haddii muqarrar badan ama bugaag badan aad gacanta kusoo dhigtid oo heshid kadibna bugaagta ka qoratid waxaa laga yaabaa in waxbarashada ay ku fududaato sidaas awgeed waxaan bilaabay in aan la xiriiro maamulaha iskuulka waxaan u sheegay xaalad jirto in aan bugaag u baahnahay waqtigaas bugaagta sida hadda loo helo looma heli jirin macallimiinta oo keliya ayaa loo ogolaa dhib ayay ahayd helitaankooda adiga haatan waxaa laga joogaa 19 sano alxaasil maamulihii xaaladii soo tixgelinayay bugaagtii oo dhan ayuu fartiga soo saaray kadibna waxaan bilaabay in aan bugaagta aan ka qorto casharada imtixaankii aan dhacay ayaan bilaabay in darajadeeda ay kor u soo kacdo sanadkii koowaad ee aan ku qaatay iskuulka nisbadeeda waxay ka kormartay 60% oo darajo lagu baasi karay ahayd 60kaas hataa waxay ku timid bilooyinkii ugu dambeeyay kadib markii aan bugaagta helay ma ahaynay saacaan waxay ahaan lahayd mid konton ka hooseysa ama 40 ama 30 adiga alxaasil waxbarashadii ayaan sii watay anigoo dhiirgelin ka dhiganaya hadalka hooyadii ilaa aan laga soo gaaray sanadihii ugu dambeeyay markii aan iskuulka ka baxayay anigoo kaalmaha ugu horeeyay ku jiro sanadkii oo tusaale form 3 oo kale kaalin saddexaad galay markii aan qalin jabinayay nisbadeedu waxay ahayd 96% arinta kale oo la yaab kale waxay ahayd sanadkii ugu dambeeyay sida roog soo sheegay sanadkii ugu horeeyay markaa bilaabay fasalka markaan ku jiray kursiga ugu horeeyay noo fadhiyo sabuurad waxba kama arkeenin laakiin sanadkii ugu dambeeyay markaan iskuulka baxay kursiga ugu dambeeyay wax ka qoran jiray si iskoodo dibiciin indhaha igu fiicnaadeen yani markii horeba adiga xaaladooda waxay ahayd TV-ga aan badsaday iftiinka oo ku dhawaa maaxne la qabsi iga rabeen sabuurad iyo wax lagu qor hore ma aan soo marin la qabsiga markii aan sameeyay indhaha si dabiiciyan caadi ay noqdeen fasalka kuraasta ugu dambeeyay wax ka qoran jiray muddadii aan iskuulka dhiganayay macallin Xasan iyo hooyo kali dhiirigelin kama helin waxa jiro yar kale oo saaxiibnahay oo Maxamed Isxaaq la yiraahdo asigana muddo 5 sano ah hal kursi wada fadhinay iskuulka sidoo kalena muddo dheer ayaan jaamacadda soo dhiganaynay ninkaas wuxuu iga caawiyay waxyaabo fara badan muddadii aan iskuulka soo dhiganaynay wuxuu ii ahaa indho iyo dhago intaba asiga ayaa ii ahaa sharaxa macallinka waxyaabaha aniga aanan fahmin say sheegi jiray xilliyadii imtixaanka wax walba say ugu siin jiray yani wuxuu iga dhigay qof dabiici oo kaleete yani markii adiga qof garabtaaga mar walba aad helisho dhiirigelin ayaad helaysaa taasina waxay kugu riixaysaa inaad hore u socoto marka abaal weyn ayaan uga hayaa sigana ilaa haatan waa isla xirinaa yarka saaxiib ayaan nahay marka aniga fariintaan diray waxay tahay wax walba ama caqabad walba oo ku soo wajahdo marnaba inaadan quusan oo aad ku tacdaasho sidii aad uga gudbi lahayd aniga markii xaaladaas ii soo wajaheenu waa yaray faktii hore waxaan isiri kama gudbi kartid laakiin talaabooyinkii dhiirigelinta la ay waalidkayga saaxiibadeedii siiyeen waxay iga caawisay in aan ka gudbo waliba si mumtaas ah darajo mumtaas in aan iskuulkii jaamacad aan ku dhameeyo anigoo dhaqal maqalkayga uu daciif yahay sharax macallinka aan waxba ka maqlaynin yani iskuris amal qof asiga wax isbaray isfahamsiinayo marka hadii aad dadaashid adiga dadaalkaaga waa ka run sheegi kartaa oo waa gaaraysaa wax la jiro fufuuq oo dadka naafada lagu sameeyay way jiraan laakiin waa hadba sida adiga ka dhigato hadii adiga aad aaminto in bulshada aad ka duwan tahay oo ka soocan tahay qof ka duwan ayaad noqonaysaa laakiin bulshada qayb inaad ka tahay hadii aaminto qayb ayaad ka noqonaysaa tusaale adiga hadii aad maanta naafo tahay arag ha ahaado ama maqalka ha ahaado ama lugaha ha ahaado oo dad kale oo iga naafo ay jiraan caqliga ayaa naafo laga noqdaa cilmiga naafo laga noqdaa fahamka naafo laga noqdaa qof aan waxba fahminaa jiro qof oo yani xifdigiisa uu hooseeyaa jiro arday damiin ah jiro mid walba cilad gooni ah haysto sidii uu soo wajahdo ayuu asna u wajahaa oo la dagaalamaa marka adiga marnaba inaas dhigatid ma ahayn oo wixii mushkilad ku soo wajaho ina adigana aad ku dadaashid sida uu talaab lahayd hadii aad is dhigatid way ku dardaraysaa laakiin hadii adiga aad dadaashid wax walba ay haataba waa ka talaabaysaa